Mama. Baba. Mama. Baba. Mama. ilaaga caanka ah ee dhanka filimada Bollywoodka ee wadanka Hindiya Akshay Kumar oo waraysi gaar ah siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka waramay filimkiisa cusub ee Padman ee uu kaga hadlayo baahida loo qabo in dumarka dalka Hindiya ay helaan suufka xilliga caadada ay dumarka isticmaalaan iyo waliba waxa uu ka ogyahay Soomaalida daawato aflaantiisa iyo xaaladda guud ee Soomaaliya hadaba wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Bombay ee dalka Hindiya kula xiriiray Akshay Kumar waxaana marka hore uu weydiiyay waxa uu ku dhaliyay inuu sameeyo filimkan Padman. When I tried to do a movie on toilets, the fact came that 54% of Indians don't have toilets in their house. They go outside. markii aan isku dayay inaan filim ka sameeyo musqulaha dalka Hindiya xaqiiqdu waxa ay noqotay in boqolkiiba 54 shacabka reer Hindiya aysan haysan musqulo ku filan banaanada wadooyinka iyo xeebaha ee dadku ku saxroodaan marka sidaas si la mid ah ayaa waxaan ogaaday in boqolkiiba 54 dumarka wadanka Hindiya aysan isticmaalin suufka nadaafadda ee dumarka maxaa yeelay ma heli karaan qaarna maba awoodaanba inay helaan suufkaasi oo waxay adeegsadaan carrada dambaska iyo maryo wasakh ah waana xaqiiq jirta oo ay tahay inaan wax ka sameeyo sababta kale ee ugu weyn ee aan filimkan u sameeyay ayaa waxa ay tahay in dalkayga Hindiya aan ka dhigo dal adag dalkaana si uu u noqdo dal adag waa inaad heshaa dumar aad u adag haddii dumarka ay yihiin kuwa adag dalkaagana waxa uu noqonayaa mid adag. If the woman is strong, your country becomes strong. Akshay Kumar maadaama dadku ay kaga barteen aflaanta dagaalka ku salaysan amaba kuwa jacaylka dadka reer Hindiya iyo waliba caalamka markaad eegto sidee bay uga falceliyeen amaba ay u arkeen filimkan cusub ee Padman. Well, the public reaction 90% people are talking good. falcelinta dadweynaha boqolkiiba 90 wanaag ay ka sheegayaan halka boqolkiiba 7 dadka aysan u arkin wax wanaagsan tusaale ahaan dadkayda Twitterka waxa ku arkay dad ii soo qoray oo leh Akshay Kumar maxaa kugu dhacay ma waxaad filim ka samaysay caadada dumarka waad caadaysan tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ay soo diraan aniga wax dhib ah uma arko balse qofka maalin ayuu ogaan doonaa inuu qaldan yahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ku iraahdo xaaskayga ayaa soo saartay filimkani caadada gabdhaha dalka Hindiya ay ka tahay balse mar dhow oo muddo 2 sano gudahood ah waxaan ballan qaadayaa intaas aysan noqon doonin wax ceeb ah. waan gartay marka Akshay arrimaha Soomaalida haddii aan kala hadlo Soomaaliya iyo waliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga waxna dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bon marka arintaasi maxaad ka ogtahay? I didn't know anything about it to be honest. Let me haddii aan si daacad ah kula hadlo runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo ii dhageysanaya sanad wanaagsan xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya runtii ma ogeyn taageerada ay hayaan Soomaalida balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegto. Thank you for telling me this. waan gartay marka adigu ka shakhsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantaada? I believe it must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirada quruxda badan ee Soomaaliya waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirada Soomaaliya ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha waxaa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho dalkaasi waa dal aad u qurux badan. If I remember, it was Mogadishu, the capital. How beautiful is your country? Akshay waxyaabo inta badan ay dadku isweydiiyaan waxa kamid ah qatarta kaas oo wajahdo markaad sameynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku salaysan dagaalka marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa? Well, I do a lot of action, but runtii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filimka sameyn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan. I take a proper care before I do it. ugu dambeyntii marka maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegto dadka Soomaalida ay ku dhageysanaya?
I would like to tell them, first of all, to come and watch Padman because that's waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u sheegay inay daawadaan filimka cusub ee Padman maxaa yeelay waa filim u wanaagsan caalamka dalkayga iyo Soomaalida waxaa kaloo aan jeclaan lahaa inaan u sheegay in caadada dumarka ay tahay wax dabiici ah waxaa kaloo dadka Soomaaliyeed u sheegaya inay ilaaliyaan oo ay ka taxadaraan waalidiintooda gaar ahaan hooyooyinka kaasi waxa uu ahaa jilaaga caanka ee dhanka filimada Bollywood-ka ee wadanka Hindiya Akshay